waa saddex dhagar qabo oo ka tirsan kooxda argixisada ee al-shabaab waxayna 5 sano ee ugu dambeysay ay geysanayeen dilal qorsheysan oo ay ku fuliyeen dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan. ciidanka amniga oo howlgalo joogto ah ka fulinayay degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ku guuleystay in ay gacanta ku soo dhigaan dhagar qabayaashani ka tirsan argixisada, waxaana xusid mudan in markii la soo qabanayay dhagar qabayaashani ay ku mashquulsanaayeen fulinta dil haweeney kamid ah kuwa qaad ka ganacsada, inkastoo gacan ku dhiglayaashani ay u dhici weysay bistooladii ay howlgalka ku fulinayeen. saldhigga degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa lagu soo bandhigay saddexdan dhagar qabe iyagoo warbaahinta hortooda ka qirtay dhagaradii guracnaa oo ay fuliyeen. magaceedu waxa waa Shucayb Cabdullaahi Xaaji oo ka tirsan xarakada al-shabaab. magaceega afgarashada waxa waa Axmed oo waxaan u qaabilsanaa degmada Wadajir qaasatan waxa aan shaqo gacanteeda ku qabto waxa waa mid qaar ka tirsan suuqa weyn iyo kuwa oo looqan oo isbitaal Madiina ka mid ah. tan hadda oo dawladda ugu dambeysay ay soo qabatana waxa mid oo siliga Ameerikaanka ah gabar sida loo sheego oo ahayd maxaa la dhihi jiray erge ahayd oo shaqada ugu dambeysay ahayd gabar erge anaga oo dul tagnay shakhsi aan aniga dul tagay biskoolada iga kidibtay wiil kale asla jirnana ay ka kidibtay. magacaygu waa Maxamed Cusmaan Macalin Axmed kuna magac dheer oo la yaqaan Cabdi Weli kuna dhashay Madiino gaar ahaan degmada Wadajir. waxaa la dhahay anigoo ka tirsanaa in muddo xarakada al-shabaab una qaabilsanaa u kala gudbinta hubka. maanta waa gacanta ku jiro dawladda Soomaaliya gacanteeda ku jiro. waxaan ka codsanaa hubkaas aan u geen jiray eheladii lagu dhibaateeyay dadka lagu dhibaateeyay eheladooda inay cafiyaan. anoo Ismaaciil Maxamed Awees oo ka tirsanaa ururka al-shabaab oo magaciina naas dilay yaqaan Yaxye ayaan u xil saarnaa degmada Wadajir iyo Dharkiinley. fal ayaan ka fulin rabnay meesha beerta jaadka islaan jaadooley oo ka tirsan ergada dawladda Soomaaliya. falkii markii oo dhici waayay kadibna oo naga ka tibina kadibna waa ayaan ka soo noqonay ciidamada dawladda ayaa gacanta nagu dhigeen. haweeney ka badbaaday dhagaradii ay fulin rabeen kooxahani ay ciidanka amniga soo bandhigeen ayaa ka hadashay qaabka ay uga badbaaday dhagartooda. mahad celinaya waxaan rabaa in macnaha ii sheeg meel la geeyo ilmahayga iyo aniga man la meeleeyo. odagayga waa boolis xoomo haysayo 7 caruur aan korsanayay marduuf jaad aan kadaayay naftaydu u soo duuleen in meel ay taala raba. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax ayaa ka hadlay howlgalkani oo ay ciidanka amniga fuliyeen. sida aad daawateen waxay qiraal ay ka sameeyeen raggan saddexda ah oo rabay inay dilaan gabar ka tirsan ergadii baarlamaanka ee Hirshabeelle ee federaalka soo doortay oo ku ganacsanaysay degmada Wadajir gaar ahaan xaafadda siliga Mareykanka loo yaqaano. ciidanka amnigu ayagoo ku jira roondooyinkoodii caadiga ahaa waxa u suurta gashay inay ku dhacaan nimankan oo raba inay gabadha dilaan. waxaa qadar rabbi ilaahay qoray in bistooladihii labada ahaa ay isticmaalayeen ay u shaqayn waayeen inay ku dilaan gabadha oo ay u dhici weysay balse ay isku dayaan ayagu inay dilaan. ciidankii ayaana gacanta ku dhigay. aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa. waxaad arkaysaan saddexdooduba sida ay waraysiga ama baaritaanku ay laamaha amnigu sameynayeen 3 maalmood la soo dhaafay ku ogaadeen inay nimankan falal dilah oo tobaneeye ka badan dhowrkii sano la soo dhaafay ay degmadan ka geysan jireen. laga soo bilaabo 2014 ilaa iyo hadda qiyaastii waxay dadkii ugu badnaa oo degmadan lagu dilo bay ku dili jireen sida ay ayagu qirteen dad badan oo iskugu jira saraakiil shaqaale dawladeed wasaaradaha dawladda ka tirsan ciidanka dad shacab ah oo runtii ama xarumaha dawladda u iman jiray howlo shaqo ama howlo ayaga u private ama ka ganacsada goobaha kala duwan intaba waa ay dileen. Nuur Saciid Haliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.